xijigu waa geed ka baxa buuraha gobollada bari iyo sanaag xabagtiisana kaalinta saddexaad ayay uga jirtaa ilaha wax soo saare puntland waana halka laga keenay magaca puntland dhulka uduga baargaal oo 360 kilomitir u jirta boosaaso oo ay ka wada tirsan yihiin gobolka bari waa deegaan saaran badda hindiya dadka ku noolna boqolkiiba 24 waa xijaysato degmada baargaal waxaa la qiyaasaa ilaa 400 oo xiji oo midkiiba 4 qof ay shafeecsan karto waxaanu dawladda hoose degmada baargaal ee aanu maayar ka ahay aanu hadda liis garaynay in ka badan 3,000 oo reer inay qoys inay ku nool yihiin maydi wuxuu ka baxaa buuraha ka durugsan magaalada oo aan subax ku jarmaadnay gobolka bari intiisa badan jidxumadan ayaa ka jirta xijiga albari ka yimaadana waxaa lala soo maraa wadadan oo kaliya iyadana waxaa socodkeeda iska celin kara gaadiidka adag ee u adkaysan kara dalcadaha iyo buuraha la isaga tallaabayo 40 daqiiqo ayaanu soo soconay 16 kilomitir degmada baargaal weli buurihii maanu gaarin xijiga lahaa laakiin waxaanu halka ku kulannay gaarigan oo 8 fiidnimo ee xalay halka ku jabay wuxuu sidaa maydi uu ka keenay buuraha gawaarida halkan caqabada ugu weyn haysataa waa jidadka iyo halkan oo ergo ah oo haddii gaariga bari ka jabto ay noqonayso in boosaaso oo dhowr boqol oo kilomitir jirta laga doono kolkii aan gaariga ciladaysan dhaafnay oo aan hal xoogaa ah soconnay ayaan gaaray buuraha uu ka baxo geedka xijigu meelahan dhadhaabaha ah ayuu sidaa uga taagtaagan yahay wuxuuna geedka xijigu u kala baxaa maydi iyo beeyo safar qaatay 2 saac 38 kilomitir markaan baargaal ka soo soconnay ayaanu nimi halkan toga halka ka bilowda waxa la yiraahdaa Abdeexan gaar ahaan halkan Reem Bari ayaa la dhahaa dhulkan aad arkaysaan waa halka guryahaba u ah oo hoyga ay seexdaan u ah xijiysatada ka shaqeeya xijiyadan ku yaala Goshan gobolka bari maydiga ayaa ku badan oo ah midka golahan ka buuxa wuxuuna leeyahay hab looga shaqeysto geedkan baa la imanaya baalkan migaafka la yiraahdo lisita waa la dhaawacaya dhaawaca marka lagu sameeyay marka waxa ka imanaya caano ayaa ama canano ayaa ka imanaysa qolof baa dusha ka maraysa meeshii uu dhaawacay qolofta waxa loo diidayaa inay gaarto heer ah inay iyadu inta iska bogsato meeshii qolofta iskay isaga dhacdo oo geedka sidiisa ku soo noqdo oo doorsato waa laga dagaalamaya marka sida loogu celceliyo ayaa faleen laga guraa maydiga waxaana arintaasi ka shaqeeya ragga oo kaliya halkani waxa ay gala u tahay maxamed iyo adeerkiis oo sanadka intiisa badan ka soo toosa meelaha ay degan yihiin waa un ku daad dabiici ah inta la shaqada ahna habkan ayay u degan yihiin godad sidaa u samaysan sida shaqooyinka kale ayaa subaxdii loo kacaa oo nin walba hareertiisa ka galaa xijiyadan dhinaca isku haya raashinka guryaha ka soo qaadanaa iyo magaalada iyo ka bacdi galahaasaan degnaa aduu 15 beri 20 beri baan deganahay oo ku xijiga ka sarcayna ka bacdi goortaan dhamayno baan guryaha ka tagnaa 20 beri 25 beri baan ka maqanahay gorjiyaadu waa soo kal galay baan wadnaa saracnaa marka sidaa weeye waxa la adeegsadaa qalab iyo tabo la barto si geedkan canano looga keeno marka ay qalasho cananadaasina waa mid noqota xabagta ee la iib geeyo waxaan sameeynaa suuxdaan ku soofnaa maalintaas soo dhan baan jiraa ilaa 5 galnaan ka soo degnaa ilaa iyo 10 maalin 15 maalin baan ka shaqeynaa kadibna guryaha ay qabanaa xafada ay baargaal lukaas aan qabanaa togan ilaa iyo 40 baan ka shaqeeyaa waxa jeesita qolob mar bay timaaday waa lagu kala tagaa hadda waxba xijiyada qararka jira waxba ka tagay baargaal jira sanad walba laga shaqeeyaa saas laga shaqeeyaa waa kuwa waxa sala ku minayso golaha iyo odayaal dhirtan oo la intifaacsanayo qarniyo waa kuwa iskood u baxay kumana jiro mid ka mid ah oo la beeray oo xitaa lama abuuri karo maadaama uu ka baxo dhulka sidan dhadhaabaha u ah tacabka gala ama shaqada gashay kaliya waxa weeye markii uu qofku ka shaqeysanayo kharashka oo uu ku galo oo maartay uu ku cuno oo maartay saadkiisa ah laakiin usaga geed ahaan kharash lama geliyo wuxuu iskaga yaalaa kamid yahay dhirta Ilaahay uu buuraha ku beeray oo roobka Ilaahay uu keeno oo iskaga baxa sidaas weeye waa dhir sidaa isugu wada eg oo dacalka isku haya mar ay jirto calaamad muuqato oo lagu kala sooci karo laakiin iskuma qaldamaan oo nin walba waxa uu yaqaan intiisa waa la kaliya meel kasta oo geed istarnasaal la wadaaga oo xijii meel yaal jiro hadda togan ilaa iyo inta inoo muuqata waxa yaal ilaa iyo 10 xijii baa yaal soodimay kala leeyihiin nimanka sanacada oo ka shaqeeya soodimooyin kala yaqaan dhir bay ku kala cabiran yihiin dhagaxyo ku kala cabiran yihiin waa dad isu yaqaan waa dad qaybsadeen ninka kala geedkiisa kuma xad gudbo
waa la isu ilaaliyaa inta ninka ka maqan yahay kan kaleeto baa waardiyihiisa qabo waa ka dadka dega gobolka bari gaar ahaan kuwa ku nool dhulka buuraha ah ee xijigu ka baxo qaarkood ayaan lahayn mulkiyadiisuna waxa ay ku timaadaa jiilal isku qoys ah oo iska soo gaaray cilladuu leeyahay cilladiisa waxaa ka mid ah dumarku inta badan ma shafiicsadaan waayo meel dumar ka shaqayn karana maaha xoogay ilaha loo tiriyo ama ceebaha loo tiriyo baa ka mid ah inaan dumarka wax laga siin dhaxalka ma galo dhibaatooyinka uu leeyahay weeyaan oo inta badan culimadu ma dhaxlaan waana wax soo jireen oo sanadahaas gudiyada loo sameeyay 400 sano ayaa nidaamka loo sameeyay ragga shaqadan qabta ee gura dhirtan qararka ku taal hawli kuma yara qaarkoodna waxa ay wajahaan halis waa lagu dhib qabaayo wuxuu ku yaalaa qarar dhaadheer oo maaragtay aad iyo khatar u ah oo qofka naftiisa khatar gelinaya buu ku yaalaa way ka soo daataanin oo waa ka dhacaanin dadka sarcaya sanadkii ugu yaraan waxa ka dhaca ilaa iyo 3 qof meelahaas 4 qof baa sanadkii qarka ka dhaca oo xijeysata way u dhintaan ama way u dhugmaan oo way jajabaaneen oo shaqada ma noqdaanin sida wax looga dheefo waxa ay ku xidhan tahay hadba sida uu yahay suuqiisu laakiin 3 sano ee ugu dambeysay ee koroonuhu jiray Puntland waxa hoos u dhacay suuqyada lagu iibsho faleenka laan dhaqaale saas ma leh xijigo oo dhacay aanu saas lacag saas ma leh way hore waa fiicnaan jiray 20 kiiladii baa la siin jiray hadeer 12 waxa la siiyaa dib kasta laga maray marka sanad kaamil sidan looga shaqeynayo oo godadka loogu kaydinayo ayaa loo soo daabulaa magaalooyinka marka horena waxa la keenaa kuwa baargaal ka mid tahay ee xijiyada u dhow baa lagu soo raraa karaatiisaas lagu soo cambeeyaa maxaa kan hadii la keeno dadka soo gurtaa laga iibsaa dabeedna xaggaas ganacsatada iibsata dabeed boosha loo iibgeeyaa waa la saafeeyaa oo ganacsi kale laga iibsadaa warkiisu xaaladiisu nooca weeye inta uusan boosaaso gaarin waxaa ku gudban hawlo u baahan in laga horleexsho gaarigu looli buu qaadanayaa dulaal baa jira waa la sii saarayaa isbaarooyinka jidka ah marsalan meesha ugu badan oo laga dhoofiyaa waa boosaaso waxaa la sameynayaa lacag yar baa laga qaadaya oo birqaad la yiraahdo isagay fuulaysaa boosaaso markuu tago dhirta iyo daaqu lacag bay ka qaadanayaan wasaaradda maaliyadduna lacag bay ka qaadanaysaa dowladda hoose degmada boosaaso waxay ka qaadanaysaa dejin wax la yiraahdo maadaama bakhaar lagu xireynayo adiga kartoonkaas waxa fuulaya lacag ah ilaa iyo $5 $6 ayuu boosaaso ku tagaya oo siyaada marka halka laga soo raro waxa la geeyaa bakhaaro ku yaal magaalada boosaaso kadibna shaqo kale ayaa u bilaabata iyada oo loo kala saarayo dhowr nooc ka hor inta aan la dhoofin arrintan gudheeda ayaa u baahan aqoon dadka qabtana waa haween sida Caaisha oo markii ay 25 sano ka shaqeynaysay u dalacday in ay ku kormeerto haweenka shaqadan haya salaadi baan soo dirmay guriga halkaas imaada waa kala ku raac kan waa meyd beeyadna waa taal labada nooc ka shaqeyna bas lacagtan ku qaan lacagtan anaga waxaan sii ragga yaga jablayaasha xoolaha la baabsiya anaga dawladana ma siiyaanin dawladana ma qaadano hadaa arrinta kala bixi waa madow iyo shooto iyo cadaan marka hawsha kala saaristu dhamaato waxaa laga dhoofiyaa dekada magaalada Boosaaso wadamada khaliijka ayaana ugu badan meelaha ganacsatada Soomaalidu u dhoofiso laakiin waxa faleenkani gaaraa qaarada kale isaga oo loo adeegsado siyaabo kala duwan waxaan arkay inuu maaragtay la Ingiriiska kaniisada Ingiriiska uu tago waaweyn Vaticanka Buddhiska dhammaan meelaha wax lagu caabudo dhan wax weeye aad ayuu u tagaa waa maydigaas aad ayaa looga jecel yahay oo waxa weeye waa lagu shitaa ma noqoto Buddhist ama noqoto Hindus ama noqoto Muslimiin ama Christianity Yahuud dhammaan meelaha lagu caabudo dhan fooxaasi uu ku dambeeyaa maydu ku dambeeyaa waxaa jiray xilli uu haystay suuq laga macaasho laakiin 3 sano ee ugu dambeysay oo uu adduunka ka jiray coronavirus waxa ku yimid suuqa faleenka hoos u dhac 2010 xilliga ugu badnaa oo muxuu aad loo dhoofi suuqa fiican oo haystay ilaa 5,000 ilaa 10,000 oo tan mararka qaarkood in uu gaaray sanadaha qaybtood muxuu ahaa numberka Soomaaliya ka baxay oo ismaydiga iyo labada marka la isku daro runtii waa suuq aad u weyn wixii ka dambeeyay 2017 suuqa xijigu aad ayuu u liitay 2017 ilaa 2019 ilaa hadda aan ku jirno oo xijiyeysatada iyo ganacsatada ka iibsada waxa ay qabaan in wax soo saarkan dabiiciga suuqiisu sida dhaami lahaa haddii uu heli lahaa jidad iyo daryeel kale dawladuna dhimi lahayd cashuurtan ku dhacaysa
dhowrka mar maxamed xasan dhalo magaalada boosaaso